ruushka ayaa si rasmiya daaha uga rogay diyaarad cusub oo nooca dagaalka jiilka shanaad ah taas oo durba loogu magac daray Checkmate waxa ayna ku soo bandhigtay bandhiga Makis ee ruushka ka dhacay 20kii bishan 4 maalmood oo qura ka hor waxa kale oo ay soo bandhigtay Moscow waxyaabaha diyaaradan cusub ay kaga soocan tahay kuxuwihii hore waxa ay sheegeen in diyaaradan ay tahay beddelka diyaaradda F-35 ee Mareykanka waliba iyadoo qiimo ahaan aad uga hooseysa dhawaanna ay noqon doonto mid la wada heli karo cid kastana ay iibsan karto shirkadda United Aircraft Group taas oo ay hoos tagaan dhammaan shirkadaha ruushka ee diyaaradaha farsameeya sida shirkadda lagu magacaabo Sokho MiG iyo Ilshwin waxa ay sheegtay in diyaaradan cusub ee hadda la soo saaray ay fagaarayaasha ka soo muuqan doonto sanadka 2023 waa 2 sano kadib iyadoo qiimaha lagu iibsanayo uu u dhaxayn doono 25 ilaa 30 milyan oo dollar qiimahan ayaana ah mid in badan ka hooseeya qiimaha diyaaradaha Mareykanka ee F-35 taas oo lagu qiimeeyo 30 milyan oo dollar kadib markii diyaaradaha F-35 laga soo saaray ilaa 665 yuurood oo noocan ah shirkadda Ruushka ayaa bayaankeeda ku xustay in diyaaradeeda cusub ee Checkmate lagu hormariyay waqti qiyaaseed aad u yar sidoo kalena la filayo soo saaristeedu inay noqoto mid la dardargeliyo durbana suuqyada timaada Yuri Salyur oo ah madaxa shirkaddan ayaa tilmaamay muhiimadda ay shirkaddu tahay soo bandhigista diyaaradda dagaalka ee cusub waliba iyadoo laga soo saarayo tiro aad u badan marka la gaaro sanadka 2026 ka hor inta aan sanadkaasi laga gaarayana la soo saari doono qaybo yar oo tiro ahaan dunida wax badan ka bedeli doona shirkaddu wali ma aysan cadeynin in diyaaradda ay ku soo bandhigeen bandhigan ay tahay mid rasmi ah ama ay tahay naqshad hordhaca wax ka bedel badanna lagu samayn doono madaxa shirkaddu waxa kale oo uu tilmaamay in diyaaradan ay awood u leedahay ka guuleysiga dhammaan diyaaradaha jiilka shanaad ee dalalka kale ay soo saaraan sidoo kalena ay awood u leedahay u adkeysiga nidaamyada jiilka lixaad ee diyaaradaha kuwaas oo la filanayo inay soo baxaan sanadaha kaabiga nagu soo haya ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ruushka oo ka hadlayay xafladda lagu soo bandhigay diyaaradahan waxa uu tibaaxay in ruushku ay suuqyo badan oo diyaaradahooda u iibgeeyaan hadda ay caalamka ku leeyihiin waxa uu xusay Afrika Hindiya iyo Vietnam sidoo kalena shirkadda waxa ay dhankeeda tilmaantay in dalalka Argentina iyo Imaaraadka Carabeed ay durba diyaaradahan baayiceen oo ay xiiso weyn u hayaan magaca diyaaradda oo ah Checkmate waxa loo adeegsadaa ciyaarta loo yaqaan chess shudranjiga ama iskaakada ereyganna waxa uu ka kooban yahay 2 xaraf oo la isku geeyay midda koobaad waa check oo la yiraahdo xilliga boqorku weerarka ku socdo mate ayaa u taagan dhimashada boqorkaas iyo in qofka ciyaarta kugula loolamaya aad ka guuleysatay sidaas awgeed magacan cusub waa boqorkii wuu dhintay ruushka ayaana magacan diyaaradda ugu magac daray si ay dacaayad ugu noqoto diyaaradooda loona ogaado inay tahay diyaarad soo aftari karta weerarada howlgalka loo xil saarnaa si dhaqso ana ay u qaban karto tallaabooyinka shaqo diyaaradan waxay awood u leedahay inay samayso duulimaad orod gaaban iyo degis kooban taas oo ka caawinaysa inay ka duusho maraakiibta diyaaradaha xambaara ama ku duldegto waxayna halkii mar qaadan kartaa shidaal dhan 15,000 oo rodol ayadoo saacadiiba ku jari karta 930 mayl waana xawaare ka sarreeya midka codka xilli diyaaradda F-35 saacadiiba ay ku jari karto 770 mayl diyaaradda waxa ku xiran raadaarka lagu magacaabo Asia kaasoo awood u leh inuu hal mar la dagaalgalo 6 bartilmaameed xitaa haddii ay jirto duruuf la xiriirta weerar elektarooniga oo aad u xooggan sida warbaahinta Moscow ay qorayso arrinka duuliyaha diyaaradda waxa kale oo uu caawin doona tiknoolajiyadka aadka u caqliga badan ee diyaaradda ku rakiban kuwaas oo u sahlaya in xal degdeg ah uu helo dhammaan caqabadaha uu wajahayana u furdaamiyo muddada uu xaaladda dagaal ama midda weerar ku jiro danka sawaariikhda iyo gantaalada ku xiran diyaaradda
waxa ay leedahay 3 af oo ay mid kasta gantaal ka ridi karto waxaana ka mid ah sawaariikhda loo yaqaano KH-59MK oo ah gantaalka nooca dilidka maraakiibta ah waxa ay kale oo ridi kartaa gantaalaha loo yaqaano air to air ee MA kuwaasoo ridadoodu fog tahay waxaa intaasi u dheer gantaalada loo yaqaano hawo ilaa dhul oo ay dhammaan ka ridi karto noocyada Grom E1 ilaa iyo E2 diyaaraddan Checkmate waxa ay aad u shabahdaa midda F-35 ee Mareykanka marka loo fiiriyo waxyaabaha ay ku soocan tahay balse waxa ay si weyn ugu kala duwan yihiin dhanka qiimaha F-35 qiyaastii 3 jibaar ayay ka qaalisan tahay diyaaraddan cusub waxayna arrintaasi ka caawin doontaa Moscow in diyaaradaheedu haddii tijaabooyinka ay ku baasaan waxtarkoodana la arko ay suuqa kala wareegi doonto nooca diyaarad ee Mareykanka F-35 ee weli kaabiga u haysa dunida Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culuumta kale Islaamka